oo cabaaday oo caruurtii soo kala ordeen oo de anna nafla caariyu kugu soo kici ninkani xiji sii xiji oo cidiyahayga xitaa xaagteen oo gacanteedii wada dhiig tahay oo uu saa tamar dhigay ay caruurtii soo yaaceen albaabka noo furna haddaanu albaabku noo xidhnaan lahaa waaban isku nafbixi lahayn albaabka noo furlaayo intii u dambeysay ayaa caruurtii hooyo maxaa dhacay caruurtu markii noo imanayso halkii baan hayaa aniguna bilaa maryaan ahay caruurta ilmaha ugu weyn waa 11 sano waa inama hooyo maxaa dhacay waxba hooyo baxa way baxaano waan ku dhigana markay caruurtii yimaadeen caruurtii gurigii soo istaageen baa sii daayay laakiin uu naf dhigay de tamar iyo itaal iyo awood ma hayo هذا ما قايل لي محولي عبادكيس وقايلنا وعباديا يا بسم الله الرحمن الرحيم ما نين halka la hayo de nin halka la hayo miya aamusay caruurtii haday soo yaaceen oo aan sii daayay Cabdiqaadir cabaadkiisa oo ku raaxaysanay caaw dhan bacii ka hayay raaxaysan baa inaan Soomaaliyada ooys oo eegna tan doqon ma hayn laakiin gurigeeda rabtay ya لكن وحيابها قال له ما أتكستده كسر معيدين بعد أسواق أصلي معيدين ما يميلوا ويا معيدين كسر تاتنا هل كان مرة يسوع عروتي أي مادينه أي هاي محاد أي وحبينا مريون عروتي دادتشي أي قبله إيشو تورين مريو إلا وتو شارتي سوي قد حساري ما أنا وأنت إذا صروان قاونها ay isoo tuureen gabdhihii mariyihii xidhay oo ayaan baxay gurigii waxaan tagay xaafadii gurigeeda soo horjeeday islaanta gurigii baan soo xidhay telefoon baan dirsaday waxaan la hadlay qasaxaygii magaalada deganaa isoo gaadha baan ku dhig ninkii kaalay warqadii iga qaada waa fariid sawarda ka dhiga ilaa hadda fariidnimo la soo laabatay laakiin waxba ka dambeeya teetana Cabdiqaadir Balsar kuma dab saari kareegal ku soco kuudka saar buufiid teetana waxa dhacday halka markay marayso ay yimaadeen markaasuu nimankii baa u tegey waxay ku yidhahdeen walaal baabka fur qolkiiba soo xidhay markaasuu yidhi ma furi karayo waan dilanahay xagay kugu dhufatay ma sheegi karayo meeshay igu dhufatay ii soo noqda ma hadli karayo meeshan inuu cid tusana ma rabo uu soo baxayo dhiig baa ka socda oo cidiyahayga intay qaybtan saa u galeen ayaa dhiig ka yaacaya deetana mara ku sii xidhxidhayo wuxuu sameeyey dhakhtarkiibuu ka soo noqday gurigiibuu igu soo garaacay daaqada waan ku baryay caruurtaadii u soo noqo waan khaldamay waad i dishay waa ceeb waxaa dadka ha u sheegin inaan islayna dadka ha u sheegin ceebteeda dadka ha u sheegin soo noqo markaasaan ku dhintaan sheego ayaan weliba inaan ku cunayo xiniyahaagina badh la baxay u sheegaya fariid wala bille haya maya sorry maya waan khaldamay maya ha odhan ama shaqal kulaha una barra marka duma kuna qabtaan taw imsa ku qabtay waxaado xaafadayadu aan la hadlo waxaan ku iri ii soo dira noori ninkii waan ishaynaayo waxa dhacday Cabdiqaadir oo nimankii baa yimi waa ka yiraan reerkayga waan rabaa anuu reerkayga waan jecelahay gabadha horta gurigeeda ha lagu soo celiyo warqadii bay igu soo qaadin hadii gurigii la igu soo celiyo xoogaa gurigeyga joogo waa ninkayga Faadmo waxyaabahan kaga wax kamid ah taqaan way hoos gelaysaa hadii ninkii la soo celiyo gurigeyga iska joogo yani waan soo laabtay xitaa nimanayso hoos ka sii walaal arrinkan iska joogo on ku war hela doqon samarada dana ka dhiga marna fariid binu yaacna marna doqon ku soo Cabdiqaadir waxa dhacday intanuu imaslaxayo intanuu ileeyahay walaalo sorry waan khaldamay halkan xoolihii buu xaraashanaya gaarigiisii buu iibiyey dukaankii buu iibiyey meheradii buu iibiyey lacagihii oo dhan ayuu xawaalad ku dirsanaya gurigeygii waagiina isagu sidii ugu qoran yahay garo guri waxaan deganahay kira ah dil baa soo socda anoo idin sheegay dil baa soo socda ku soo
lacagihiibuu urursaday lacagihiibuu wada urursaday lacagihiibuu xawaalada dhigtay wixii oo dhan buu iibiyey wixii oo dhan buu xaraashay uu dhaqaajiyo wuxuu tegey wadankii aanu ka nimi buu fadhiistay arrin buu rabaa shilin ma haysano 1,000 shilin oo dhexda ka daloola ma haysano lacag ma haysano gaariga yaraa caruurtaan ku qaadiyey gurigaa kiraan ku deganahay hablo badan oo shaqaale waxbaa nala joogay shilin ma haysano dhexda ka daloola war maad lacagna siisid ma hayo lacag hooyada iyo walaalahay baan la hadlo waxaan ku idhi ninkiina lacag ima siinayo meeshiina waan joogaa 3 sano dambena inaan sii joogo waan rabaayo caruurtii weli waxbarashadii baan rabaa inay sii dhameeyaan halkaasaanu xaaladaasanu ku jirnaayo waxay yiraahdeen guriga waxaana lagu leeyahay kiradiisi 6 bilood gurigaan deganahay kiradiisi lagu leeyahay oo intuu joogay uu xoolahan xaraashanaya uu lahaa lacagtii way soo socotaa waan dalbay way soo socotaa lacagtii way soo socotaa lacagtii way soo intaa uu lacagta urursanaya anigana wax igu maawelinaya lacagtii way soo socotaa hooyaday baa 500 ii soo dirtay walaashayna 200 700 baa noo soo dhici jirtay 500 waa waxbarashada caruurta 200 iyo 200 isagu noogu soo daro 400 waa masruufkayagii xaafadoo dhan nolosha Kenya waa qaali caruurtii waa caruur qurba ka timi wixii way iswada gaari waayeen xaaladay dhale haday noloshii adkaatay oo noloshii nagu adkaatay oo caruurtii meeshii ku gaajoodeen oo hooyo noloshani waa maxay ay leeyihiin ardaydu wax ka gaajo badan anigii madoobaaday anigii nooc kale u ekaaday anigii si kale u ekaaday 3 sano aan meeshii joogo ayaa waxa dhashay karoonihii habeen ma gaajooteen marka waa gaajoonay ma ahaan intaan roodi soo iibiyo baan roodi iyo shaax caruurta siiya ma habeen inta caruurta dhex seexatay ma ku dhex ooydaa ma la sheekaysataa maxaad samaysaa caruurta yarar waan ka ilaaliyaayo waxaan ku idhaahdaa hooyo shaqo ku maqan yahay aab oo ma idhaahdo uu ina xumeeyey ma idhaahdo isagu lacag inooma soo diro lacagtan xitaa reerkaygu noo soo diraan waxay moodaan inuu aabihii noo soo diray waxaan ka ilaaliyaa aabahood inay colaad u qaadaan laakiin anigu waan gaajooday oo waan ku dhex gaajooday oo caruurta roodhidaasaan ku maaweeliyaa oo nolosheeda gaajo halkan ku dareemay adduunka inaad gaajootaa ugu xun gaajadan halkaa ku dareenay nolosheeda maanaan soo dareemin qolkaaga marka tagto ma oydaa maxaad samaysaa haa balse waa nolol bilowgeede haa cabdulqaadir qofkaad nolosha jacaylka intii leekaa isla soo marteen noloshii quruxda badnaa isla soo marteen xaaladihiin idiga soo sheekeynaya caawo dhan aad isla soo marteen oo hal mar isbedelay maantana noloshii halkaa taagan tahay والله وحن والله إلهي قبلك استوى dhibaatada ku jirta ka saaro waxaalad aad u adag waxa dhacday maalintii dambe baa karoonihii baa dhacay waan ooyay keligay in badan oo badan maalintii dambe waxa dhacday ku dhacday dad badan waxa dhibaatada kala haysataa marka dad badan ba kaligood guriga ku ooya marka waxaad qaban jirtay tasbiixda akhrisan jirtay miyaad tukan jirtay shirkadana faahfaahaysan isku day marka soo dhiibisaan please si dad badan waxyaabo kale oo idinka sii faa'iidaan ku soco deetana waxa dhacday cabdulqaadir oo karoonihii waqtigii karoonihii lockdownkii baa la gaaray meel kasta la xidhay iskuuladii la xidhay waxbarashooyinkii la xidhay tasbiixdan ku ilaabi jiray bay jiri inaan sujuudda markasta ku ooyo laakiin haddana markasta dee qof wax dareemaya oo wax tabanaya ayaa tahay qof waxa weeyaan dhan marka loo eego qarinaya waxanoo dhibaato oo ku dhacday oo dhibaatadan oo dhan keligeed ay ku dhacday cidina aanay ogeyn dhan marka loo eego dadkii guriga la joogay caruurtaydii aan ka qarinayo shaqaalihii oo dhan iyo dadkii martida oo dhan ila joogo dhan iska tagay hal gabadh oo madow oo na caawisan baa noo hadhay markaa tasbiixdan baa isku ilaawin jiray laakiin marxalad adag bay ahayd waxa dhacday karoonihii baa la gaadhay iskuuladii baa la xidhay meel kasta waa la xidhay waan la hadlay waxaan ku iri waan soo tegaynaa waan soo baxaynaa guri noo kire wadankii baan ku noqonaynaa aan ka nimi baasaboorkiisa aan wadanay waayo waa ninkaygii rooya dabeetana wuxuu maxaad soo doonaysaan iska jooga maxaad soo socotaan way adu imanaysaan markaasaan ku iri waan soo tegaynaa
waan soo tegaynaayo waan rabnaa inaan nimaadne tigidhana noo soo dir gurina noo kale maad iska joogtaan maad halkiina fadhidaan maad halkiina iska amsada 200 buu noo soo diraa ama 300 kiradii guriga waana lagu leeyahay odayga guriga iskale maalin kasta waan islaynaa markaas wuxuu dhahaa waan idin dacweynaya waan idin xidhaya saanaan idin gelaya markaasaan ku dhahaa adeer waan ku siin doonaa lacagta maanta guriga isagu ma laha mu iibi bari guriga anagu maana degnay sleep ku dhex yaalay oo isaga kaas magaciisu ku qoran yahay uu kireysan yahay kaas waana guri yar markaan ku uri waan soo tagayaa maxaad soo doonaysaa maxaa dhacay maxaa halkaagan iska joogtaan maad halkiina iska joogtaan Cabdiqaadir alaabtii guriga ii taalay oo waagu qomanaan iibsado alaab qaali ahayd baan iibsanay tigidhadii baan goosanay odaygii waxaan ku nidhi adeer markaan tagno meel ayaan lacagta kuu soo direynaa markaas haddaan dhinto lacagteeda bixin maysaan ha ila soo hadlina odaygiyo nacaayo lacag fara badan nagu leh baan ka soo tagnay ninkaas xaas kala guursaday 100% ku soco airportka markaan saa uga soo degnay guri noo sii karee baan ku nidhi guri idiin kareen maayo guri maxaad ku raysaan dowladda u taga dowladda guri weydiisa war adigoona qabood ninkayga tahay guri dowladda weydiisan mayno aad shaqaysato 2 shaqo ka shaqeeya annagu guri dowladda weydiisan mayno guri noo sii karee oo gabadhan caawin jiray intay guri soo heshay tir halkaasaan guri ka soo helay ii soo dir hayla soo saxeexay gabadhii markaan u diro ku war gabadha u tago guriga la soo saxeex isagay gabadhii baa heshiiyey wuxuu ku yiri adiga marka hore ha kugu soo degto adiga markay kugu soo degtaan guri u raadinaya airportkii buu naga soo dejiyey airportka markuu naga soo waxaad moodaa inaan hooyadii iyo aabihii soo dilnay oo soo gogoynay wejigiisa waxaad moodaa gambar nooba ku qoran airportka markiisaa nooga soo dejiyey caruurtii la hadli maayo annagiina la hadli maayo salaami maayo maxaad soo doonteen maxaad dirubteen maxaad u timaadeen una soo qaaday gurigii gabadhii buuna keenay gurigii gabadhii hadduuna keenay hal qol bayna siisay gabadhii shantayadayda qol yar bayna siisay haddaan gurigii qolkii saa hor fadhino ayuu wuxuu igu yiri oo markaan saa usoo tegan saa diyaaradda usoo degan guriga saa u imi intaan diyaaradda soo saarnaabaa meherkiisii dhacay uu gabadh guursaday diyaaradda intaan soo saarnaa ayaa meherkiisii dhacay subxaanaka ya cadiim haddaad aarsan weydaanaa ku tuuraya caawa Faadumo ku soco wuxuu leeyahay gabadhan iyo iman gabadhan uu guursanay wuxuu ka qariyay inuu naag guursaday inuu caruur dhalay noloshiisaba naag maan arag buu ku yiri adiga ha ku qariyay ma caruurtu ma qariyay ma caruurtu qariyay weligeeba wax ma dhalin wax ma arag oo meel ku yaala ma sawiran buu yiri waalan adduunka wuxuu noogu ciirinaya halkaa aan ugu jirno uu rabaa wuxuu u rabaa inaanay gabadhaasina ogaan gabadhaasuu naga qarinaya ninkaagii waa ninka